السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. نبضة وضيال سودا وهذا برنامج كني فلانقينتا وركي قدام بي صوماليا إيو عالمك qodobada maanta aynu soo qaadan doono waxa ugu daroon dawladda Itoobiya oo sheegtay inay ku dhawaaqi doonto heshiis rasmi ah oo la gaadhay Somaliland. Israasaaseen xoogan oo ka dhacday xabsiga dhexe ee Muqdisho maanta. qodobada kale aynu soo qaadan doono waxaa kamid ah guddida taya dhowrista Somaliland oo amaro culus ku soo rogay ganacsatada dalka Kenya dawooyinka. qodobada arrimaha dibadda aynu soo qaadan doono waxaa kamid ah daawadayaal mid kamid ah diyaaradaha laga leeyahay dalka China oo maanta halis ku gashay hawada dalkaasi kadib mar ay ku guda jirtay duulimaadyadii caadiga ahaa. qodobada iyo qodobo kale ayaynu soo qaadan doonaa. soo dhawaada daawadayaal. haddii aan isku dayno qodobka ugu horeeya barnaamijkeena maanta, dawladda Itoobiya ayaa sheegtay inay ku dhawaaqi doonto heshiis rasmi ah oo la gaadhay Somaliland. mas'uul sare oo ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay inay dhawaan ku dhawaaqi doonaan heshiiskii isfahan ee dhexmaray Somaliland iyo Itoobiya dhawaan laga dhigi doono heshiis rasmi ah. mas'uulkan oo ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha gaar ahaan una qaabilsan dhinaca warbaahinta iyo isgaarsiinta oo uu waramayay warbaahinta lagu magacaabo Arab World Prize ayaa sheegay safarkii uu dhawaan ku tagay dalka Suudaan ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ay ujeedadiisu ahayd sidii loo adkeyn lahaa xadka ay wadaagaan Suudaan iyo Itoobiya. mas'uulkan oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in ujeedada laga lahaa adkeynta xadkaasi ka hor inta aan lagu dhawaaqin heshiiska safgarad ee Somaliland iyo Itoobiya lana adkeeyo xuduudaha u dhaxeeya Itoobiya iyo dalalka la jaarka ah. mas'uulkan oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay Itoobiya waxa ay ku degdegaysaa inay gaadho ajandayaal muhiim ah oo ay ugu horeyso inay gaadho marin biyood. mas'uulkan oo waramayay warbaahinta Arab World Prize ayaa waxa uu intaasi ku sii daray inay dhawaan ku dhawaaqi doonaan heshiis rasmi ah kana dhigi doonaan heshiiskii is-afgarad ee u dhaxeeyay Somaliland iyo Itoobiya. ona sheegay inay sida ugu dhaqsiyaha badan u dhameystiri doonaan xurgufyada u dhaxeeya dalalka jaarka la ah ay kuna dhawaaqi doonaan heshiiska rasmiga ah la dhameynayo la galayaan Somaliland sidii isfahankii hore lagu bedeli lahaa heshiis rasmi ah, taas oo uu xusay inay doonayaan in 20 kiiloomitir ay u helaan saldhig ciidan dhinaca badda ah. taa bedelkeedana Somaliland ay siin doonaan aqoonsi. guddida dhowrista tayada Somaliland ayaa amaro culus ku soo rogay ganacsatada dalka keenta dawooyinka. guddidan oo soo saaray warqad ayaa maanta waxay u dhignayd sidan: guddidu markii ay tixgelisay dhibaataynta iyo waxyeelada kulaylka faraha badan uu daawada ku keeni karo inay soo raran tahay iyo inta ay hanaanka cashuurta la marinayo ee ay dekada dhexdeeda taalo. guddida dhowrista tayadu waxa ay daraasad ku sameeyeen qiimeynta tayada daawada lagu keeno konteenarada qaboojiyayaasha iyo kuwa qalalan inay kala duwan yihiin oo konteenarka qaboojiyaha leh ka fiican yahay xagga ilaalinta tayada dawooyinka. guddida dhowrista tayada waxay dhammaan shirkadaha soo dejiya dawooyinka farayaan in ay ku keenaan konteenar qaboojiye leh laga bilaabo 1 bisha 9aad 2024 si loo ilaaliyo tayada iyo badqabka dawada dalka la keenayo.
loona ilaaliyo caafimaadka bulshada isticmaalaya dawada laga bilaabo taariikhda kor ku xusan lama fasixi doono dalkana ma soo geli doono dawooyin aan container qaboojiye ku jirin. Guddida oo hadalkooda sii watay ayaa waxay kusoo gabagabeeyeen sidaa darteed waxaan faraynaa shirkadaha soo dejiya dawooyinka in amarkani sidiisa u dhaqangeliyaan. Shirkadda u hoggaansami weyda waxay guddidan ka qaadi doontaa tallaabo sharciga waafaqsan. Qodobada kale ee barnaamijkeena maanta waxaa ka mid ah israasaasin xoog leh oo ka dhacday gudaha xabsiga dhexe ee Soomaaliya. Israasaasin xoog leh ayaa ka dhacday xabsiga dhexe ee Soomaaliya, halkaasi ay ku jiraan maxaabiis tiro badan. Ilaa hadda ma cadda israasaasinta gudaha ka bilaabantay weerarkii iyo cidda qaaday, laakiin xogaha ka soo baxaya xabsiga dhexe ee Soomaaliya ayaa waxaa ay sheegayaan in mid ka mid ah maxaabiista ku xidhan meesha uu isku dayay inuu qoriga ku qabsado askari ka tirsan ilaalada xabsiga. Maxbuuskan ayaa waxaa la sheegay isagiiyo maxaabiis kale oo ku wada jira xabsiga inay weerar abaabulan ay kusoo qaadeen askari ka tirsan ciidamada xabsiga, kadib dhaawacyo ay gaadhsiiyeen, laakiin wixii ay filayeen uma suurtagelin. Maxaabiistan ayaa waxaa lasoo warinayaa inay dhammaantood ahaayeen xukumanayaan ku xukuman dil kana tirsan xarakada Al-Shabaab. Qodobada kale ee arrimaha dibadda maanta aynu soo qaadan doono waxaa ka mid ah daawadayaal. Mid ka mid ah diyaaradaha laga leeyahay dalka Chinaha ayaa waxaa lasoo warinayaa inay halis ku gashay hawada maanta. Haddii aad hore u maqli jirtay daawadayaal, xaajo nimaan aqoon ayay indhaha ka ridaa, waa tan oo kale, waana tan iyadoo dhaba. Salaasadii mar ay bishu ahayd 9kii July waxaa hawada dalka China ka dhacday mid ka mid ah arrimihii yaabka lahaa iyo maadda ee ka dhex dhaca diyaaradaha dadweynuhu ay raacaan. Sheekadan oo ka dhacday diyaarad China Air ayaa ahayd gabadh rakaabka ah oo si khaldan u furtay goob tilmaan u ah inay diyaaradda khatar wajahayso. Gabadhan oo doonaysa inay gasho suuliga ayaa si khaldan u furtay albaabka laga baxo marka ay diyaaradda khatar wajahayso, taasoo u sababtay inay qayliyaan dadkii rakaabka ahaa oo u maleeyay inay diyaaraddii khatar soo wajahday. Shaqaalaha diyaaradda oo si degdeg ah u soo gaadhay albaabka ayaa ku guuleystay inay dib u xiraan isla markaana ay dejiyaan dadkii naxsanaa ee kana afariinsanaa falkii gabadhan ay ku kacday. Diyaaraddu markii ay dhulka soo caga dhigatay ayaa waxaa ku qasbanaatay inay raaligelin ay siiyaan dadkii rakaabka ahaa iyo magdhowga la siiyey dadkii rakaabka ah diyaaradda saarnaa ayaa waxaa la qadar lacagteedu dhan $50 oo dollarka Mareykanka ah, taasoo ahayd mid lagaga xaal marinayay halista ay dareemeen xilligii albaabka ay furtay gabadhan. Gabadhii sida khaldan u furtay albaabka ayaa waxaa lasoo warinayaa in loo gudbiyay ilaamaha booliska, waxaana lagu xukumay inay bixiso lacag dhan $30,000 oo dollarka Mareykanka ah oo magdhow ahna falkii ay ku kacday. Laakiin ciidamada booliska China ayaa waxay gadaal ka ogaadeen in gabadhani hore aanay weligeedba u raacin wax diyaarad ah, ay tahayna markii ugu horreysay cagta saarto diyaarad hawada maraysa, sidaas darteedna aanay aqoon falka ay ku kacday. Gabadhan laf ahaanteeda ayaa ka argagaxday lacagta lagu xukumay, taasoo hadalhayn badan ka dhalisay warbaahinta dalka Chinaha.
arrinta maantan. daawadayaal intaynu barnaamijkeena xuquuq ku kulmi doono. salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.